kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh horfadhi media kolob la socda dunida iyo warbixinihii waliba kolob kala socodteen kan dunida dhan daawadayaal aan idinka soo ururiyay wararka wacalaha iyo xogaha diblomaasiyadda qodobada maanta wararkana ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn xaaladii diblomaasiyadeed ee dalalka Mareykanka iyo Turkiga oo xiriirka isku shareertay iyo Mareykanka oo laba jibaaray cunaqabateyn u saaray dalkaasi Turkiga madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Turkiga waxay isdhaafsadeen hadaladii waadka abid lacagta liirada ee dalkaasina hoos bay u leexday iyadoo dagaal xagga dhaqaalaha ay ku dhawaaqeen Turkiga qodobada kale daawadayaasha qiimaha leh ku maqli doontaan Iran waxay sawaariikh ku tijaabisay isla markaana ay ka wada howlgal military oo toox marinka Hormuz iyadoo Mareykanka uu ku dhawaaqay in heegan la geliyay ciidankiisii bariga dhexe iyadoo labadaas dal xiisadooda cirka isku shareeris Shiinahana waxa lagu eedeeyay in malaayiin qof oo dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay dalkaasi ku dhaqana uu ku xabsiyada ku guray qaar koodna uu xidhxidhay isagoo ku baacsanaya diintooda islaamka ay haystaan qodobadaas iyo kuwa kala daawadayaal ku maqli doontaan wararka iyo wacalaha dhinaca diblomaasiyadda dabcan waa 11 bishii 8 waa maalinimo sabti ah waa markale barnaamijkeena falaqaynta dunida iyo warbixinada diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh intaan u galin wararka dabcan aan hal iyo laba ka soo qaadano falanqaynihii iyo warbixinihii ugu dambeeyay maalinimadii shalay heeda jimcaha ahayd oo dabcan dad badan ay ka hadleen si weyn uga doodeen iyadoo dadka Soomaaliyeed markaasi ay ku kala aragti duwanaayeen ama inkastoo aan fahansanahay in dad aad u badan oo waxgarad ama dadka dheergaradka ah ay og yihiin kol walba in horfadhi media ay tahay hooyga markaasi wararka Soomaaliyeed dabcan mar walba anagu aan diiradda saarno wixii danta Soomaaliyeed ku jirto iyo xogaha caalamku sida ay yihiin oo dunida oo dhan ka keenno hase yeeshee waxa mudan dadka qaar kood aysan arrintaasi fahmin taasna waxay ka dhigan tahay waxay una xasuusinaysaa bilowgii markaan wararka iyo warbixinaha bilaabanay xilligii sanadkii hore ayaa waxaan xasuustaa in dad badan oo Soomaaliyeed ay oo u bartay in warqad inta lagu soo qoro 3 qodob ah oo qodobadeeda qof intuu akhriyo uu iskaga baxo ay la qabsan waayeen qaabkan wararka u dhigno oo dabcan waxaan ugu garownay dabcan inay yihiin wax Soomaalida ku cusub oo wararka analysinka iyo wararka qaada dhigista iyo taxliilka ee aan ahayn wax warqad lagu soo qorqortay balse in warbaahinta caalamka la dhex jibaaxo maqal iyo muuqaal la dulkeeno isla markaana lagu daro falanqayn iyo xog wada socodsa oo madaxda caalamka wararka sirdoonka iyo la isku dubarido inay nagu cusbeed taasna muddo nagu qaadatay inaan dadka barno dabcan hadda inay muddo kale nagu qaadato dooni miino inaan dadka waxaan nahay u sheegno waayo waxyaalaha muhiimka ah daawadayaasha qiimaha leh ay oran karo waxa weeye horta horfadhi media marka u horeysa kooxna ma jecla kooxna lama shaqeyso laakiin waxaanu daacad kaliya u nahanay dalka iyo diinta anagu daacad uma nihin group koox siyaasiyiin iyo madax gaar taas in isla fahano way sida daraadeed marka la gaaro hadii ilaahayna gaarsiiyo dalkeena oo aanu gaarno qof cod iyo qof waxa loo yaqaano ama one man one vote haddaynan hadeerto aynan sheegin wararka iyo waxyaalaha dalkeena ku xun iyo hoggaankeena wixii ka khaldama oo aynan warbixinahaana u toosin wacalahaana u keenin maxaad ku xisaabtanaysaa hoggaamiyaashaada dunida horumartay oo dhan waxyaalaha horumarka ugu weyn ee ka gaareen waa saxaafadda waxyaalaha saxaafadda dabcan Soomaaliya ka jirta iyo saxaafadda adduunka ka jirtana waa kala labo saxaafadda caalamka ka jirta waxay gaarsiisay dadka bulshooyinka dunida inuusan qofku gurigiisa ka bixin ama uusan labisan ilaa uu TV-ga ama uu warbaahinta bulshada uu furo oo eego cimilada iyo halkay marayso warbaahinta uu kala socdo sidoo kale in uu wax kasta oo deegaankiisa ka dhacaya iyo wax kasta oo dunida ka dhacaya uu warbaahinta kala socdo waana tan adduunka Soomaaliya lagaga hormaray dabcan warbixinaha anagu aan diyaarino dhaqaale kuma qaadan cidna dhaqaale daawadayaasheenana dhaqaale kaga ma helno dadka dabcan dawlado shisheeyana uma shaqeeyno sida warbaahinta Soomaaliyeed ay ka damayso dalalka kale reer galbeedka dhaqaalahooda bixiyaan manihin warbaahinta kale TV-yada ayaguna sharuurka qaatay lacagta dadka wararkooda ka iibiya manihin wixii warbixinaha iyo barnaamijyaha kuwii xorriyadda toddobaadka Soomaalida ilaa 26 June 27 June iyo 1 Luulyo aan diyaarinay iyo dhammaan wararka aan idin keenno annaga ayaa isku xilsaarno tuurta saaranay arinta kale muhiimka waxa weeye qadanaha geeska Afrika iyo siyaasadahan soconaya maadaama anagu aanu nahnay wakaalada ugu weyn ee keenista wararka gaar ahaan wararka diblomaasiyadda tuurta saaratay waxa muhiim ah in aynu ogaano sida aynu dabcan aynu xog badan aan ka keenno sida aysan ahayn in ay Soomaalida geeska Afrika joogta ay kala irdhayso siyaasadda gobolka ee isku soo dhaweysay kuwii isugu cadowsanaa Eritrea Ethiopia ay tusaalaha u yihiin sidoo kale dawladda Soomaaliya in la saxo oo la toosiyo taa macnaheedu burburna maaha warar been abuur oo laga sameeyay ma waan fahansanahay dad aad u badan oo noo soo mahad celiyay runtiina aan ahayn dadka ayagu
anagu dhalinyarada ee markiiba bartan yani commentska ku yaaca oo qarkood telefoon noo soo diray kuwa Facebook naga soo aad baan ugu mahadsantihiin fahankiina wuxuuna tusayaa hal heerka aad ka gaadhsantihiin fahanka wararka ee Hurfadhi Media anagu waxaan nahay ama qada dhigistayada ku saabsan ama taxliilka ku saabsan arrimaha diblomaasiyadda iyo wixii dawladda Soomaaliya ka qalloocday iyo madaxdeeda mar walba waan sii wadi doonaa isla markaana waxaanu ka dhigi doonaa kuwa toosin ah ee aan ahayn burburin anagu cidna uga heebaysamino inaan danaha qaranka Soomaaliyeed ilaalino dabcan se ma ballan qaadi karno inaan koox gaara ama siyaasiyiin gaara aan dantooda ilaalino deegaan gaara ama qabiil gaara uma hadallo shakhsiyaad gaara ma taageersanin cidna kama naqaano ama cidna kala xiriirno anagu dabcan dad gaara sida daraadeed waxa muuqata in markaasi ay fahamka dadka Soomaaliyeed ay tahay inay kor u qaadmaan mar walba isla markaana ayna noqonin inay guul wadeenno oo hadaynu guul wadeenno dawladnimo inoogu hagaagis dawladeena waa inay accountability and transparency wax la yiraahdo waa inaan kula soconaa isla markaana aynu la xisaabtanaa wixii wanaagsan ee ay noo sameynayeen Hurfadhi Media intii aan wararka baahinay hal war oo wanaagsan oo horumar oo dhinaca diblomaasiyadda dawladda Soomaaliya ay gaadhay oo aanan sheegin ma jirto dad badan baa markaana waxayna lahaayeen dawladda u shaqeeysan nabad iyo nolol baa tihiin waa kan dad badan baa salaha hadeertana dadkii lahaa uma shaqeeyaan dhexdhexaad baa tihiin qaar kamid ah waxayna leeyihiin waad ka soo horjeesateen waa kan anagu cidna ma taageersan cidna ma jeclin dawadaasha qiimaha leh waxaan nahay warbaahin Soomaaliyeed oo danta Soomaali dadka Soomaaliyeed ee Soomaalida jinsigoodu yahay kuwa jooga qurbaha kuwa jooga Scandinavian Canada Sweden Mareykanka kuwa jooga Djibouti kuwa jooga dawlad deegaanka hadeerta muranka xoogan ka taagan yahay kuwa Kenya ku caalamka dhan ku dhaqan dantooda meesha ay ugu jirto ayaan u xaglina hase yeeshee ma xarigno group gaara iyo koox gaar oo ma shaqeeyno wixii dalka ka qalloocda iyo wixii qarannimada dalka Soomaaliyeed ka qalloocdana Hurfadhi Media marna cidnaba uga heebaysameyso taana inaynu ka wada soconno dad qofka wadanigaana taas ayaa muhiim u ah balse qofkii markaasi cadfad kale hayso dabcan laba qanci karo aan ku qosqo wararkeena iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka dhinaca xuquuqul insaanka iyo midab kala sooca ayaa waxay ku eedeysay isla markaana waxay soo bandhigtay warbixino waaweyn oo qalbi jab leh oo lagu sameeyo dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi Shiinaha ee qowmiyadda Uguru ka soo jeeda shir dhageysi oo laba maalmood ah oo lagu qabtay magaalada ku taala Switzerland ee Geneva ayaa waxaa halkaasi gabadha u qaabilsan qaramada midoobay hay'adda la yiraahdo UN Committee on Elimination of Racial Discrimination oo la yiraahdo Gay McIndoe waxay sheegtay in baacsi xoogan iyo qalqabasho aan cid ogeyn oo warbaahintu ka warramin lagu wado dadka Uguru oo la doonayo in lagu xididsiibo siday halkaas ka sheegtay gabadha ayaa waxay soo bandhigtay warbixino iyo waliba muuqaalo muujinay argagax yeeshay taasoo la sheegay in dad gaadhay in ka badan 800 oo kun oo qof oo dadkaas laga soo tarxiyay laga soo ururiyay gobolka Shin كاو la yiraahdo ee dalkaasi Shiinaha kuwaas oo lagu xidhxidhay baa la yidhi markaana la geeyay xiriyo gaar ah oo dadka looga takoray warbixintu waxay sheegaysaa ama hay'addu waxay intaas ku darasay dadka Iguru oo laga soo ururiyay gobolka ismaamul goboleedka ay horey u lahaayeen ee baa la yidhi kuwa ay uga tira badan yihiin dadka kale ee Shiinaha asalkoodu yahay ee la yiraahdo Han ay u muuqdaan baa la yidhi kuwa looga hiilinayo dadkaas oo ay muran xoogan ka dhaxayaan Miss Gay waxay sheegtay in qaramada midoobay looga baahan yahay in talaabooyin dheeraad ah ka qaado Shiinaha konton kamid ah ergo Shiinaha ka socota ayaa shirka ka qayb galay kuwaas oo lagu garaacay su'aalo waaweyn isla markaana la weydiiyay halka xuquuqul insaanka gaar ahaan arrimaha diin u madax banaanaanshaha ama inuu qofkii diintiisa xor u ahaado halka ay ka taagan tahay dalka kuwaas oo qaarkood ay diideen inay su'aalaha ka jawaabaan wasiirka markaasi arrimaha dibadda ee dalkaasi Shiinaha ayaa dhawaan wuxuu sheegay in arrimaha cabashooyinka la eegi doono safiirka qaramada midoobay qaybteeda xuquuqul insaanka Geneva u fadhiya Shiinaha Yu Xinhao ayaa asaguna wuxuu sheegay in laga shaqeyn doono hay'adan qaramada midoobay u qaabilsan midab kala sooca in la geeyo ama midab takoorka la geeyo xarumahaasi si wax looga qabto mid kamid ah ergada ka tirsan hay'adda ayaa waxay sheegeen in indhaheeda ay saartay in dadka loo sameeyay laba xarumood oo lagu kala magacaabay xarunta dhaqan celista ee waxbarashada iyo xarunta xadhiga taasoo lagu xidhay baa dadka aan dalka u dhalan goobaha lagu xidho iyo xarunta kale oo loogu talagalay baa in dadka diintooda looga celiyo horeyna waxay u sheegtay hay'adda Amnesty International oo iyadu war qoraal soo saartay oo gaaraya in ka badan 300 oo bog oo ahaa ciwaanku uu ahaa naxariis darrada Uguru lagu hayo waxa ay sheegtay in dawladda dalkaasi loo adeegsato tababadan oo ay ku bartaamaysato dadka laga tirada badan yahay muslimiinta oo ay ka mid tahay bay yiraahdeen inay fiiriyaan dadka isticmaalaya salaanta islaamka ee la isku
isku salaamo dadka gadhka sii deysta iyo haweenka xijaabta kuwaasoo wadooyinka laga qabqabto oo ka dhigan baa layidhi in dembi loo arko tallaabooyinkaasi. waxaa sidoo kale hay-adda Amnesty International ay sheegtay in 100 arday oo ka noqday isla markaana waxbarasho ka helay oo waxbarasho ku dhameeyay dalalka Masar iyo Turkiga la waayay meel ay jaani cirib dhigeen kolkii ay ka degeen gobolkooda, taasoo loo maleynayo inay ka hortagayaan dadka cilmiga leh ee bulshada ka dhashay si aysan u fidin bay yiraahdeen ama aysan dadka wax u barin. Fatima Pinto Dah oo kamid ah xubnaha soo saaray warbixinta isla markaana ka qayb gashay kulanka dhageysiga ayaa su'aalo xalay waxay weydiisay guddiga Shiinaha ka socda iyadoo weydiisay bal heerka uu ka marayo xorriyadda diinta dalkooda iyo sida ay ula tacaamulayaan dadkan iyo sababta dadkan ay ku haystaan oo kaliya aan ahayn bay tiri diintooda balse sidoo kale dhaqankooda. waxa ay sheegtay in dadka qaarkood loo isticmaalo si loo hubiyo asal ahaan halkay ka soo jeedaan hidisidaha DNA-da loo yaqaano, taasoo ay ku tilmaantay inay tahay wax cawaaqib xumo. waxa warbixinta lagu qoray markii dambe inkastoo Shiinuhu baa layidhi uu dhaqaalo ka sameeyo dalal badan oo muslimiin ah, haddana ma jiro baa layidhi hal dal oo ku baaqa inuu ilaaliyo xuquuqda dadka muslimiinta laga tirada badan yahay dalkooda ku dhaqan. halkaad nagala socotaan waa Hurfadhi Media iyo wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda. mid ka mid ah dadka ugu aqoonta badan dalkaasi Israa'iil isla markaana kamid ahaa wariyaashii la shaqeyn jiray xukuumadda ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Netanyahu ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu ku soo qoray in ciidamo ka tirsan dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta oo tababar ku qaadanayay dalka Israa'iil kuwaas oo loo diyaarinayay inay fahmaan baa layidhi ama ay tababar u galaan sida loo wado ama loo habeeyo diyaaradda F-35 oo dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta ay dhawaan doonayso inay Mareykanka kala soo wareegto oo midkood uu ka qayb galay duqeyn laga geystay magaalada Gaza ee dalka Falastiin ee hareeraysan. Eddie Cohen ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu soo dhigay sawir muujinaya duqeyntii shalay ay ciidamada cirka ee dalkaasi Israa'iil ay ka geysteen magaalada Gaza, wuxuuna sheegay in ciidamo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee cirka ee dalkaasi isku tagga Imaaraadka Carabta ee tababarka u jooga dalka Israa'iil ay qayb ka ahaayeen duqeyntaas iyagoo lagu tababarayay isla markaana loo sheegay in goobaha ay duqeynayaan ay ku sugan yihiin kooxda Hamas oo dagaalka kula jirta dalka Israa'iil iyo xukuumaddiisa. hase yeeshee taliyaha guud ee booliiska ee dalkaasi isku tagga Imaaraadka Carabta General Dahi Khalfan ayaa arintaasi dhaleeceeyay, wuxuuna sheegay in ay jiraan ciidamo iyo saraakiil buuri tababar u jooga in ay khibrad soo qaataan habka diyaaradda cusub ee jiilka shanaad loo yaqaano dalkaasi Mareykanka F-35 balse aysan jirin inay ka qayb qaateen duqeymo ka dhan ah Hamas. Cohen ayaa wuxuu sheegay inuu cadayn u hayo in ciidamadu ay ka qaateen arintaas. warbaahinta dalkaasi Israa'iil ayaa iyaguna waxay soo tabinayeen in dhawaanahan oo dhan ay ku sugan yihiin dalka isku tagga Imaaraadka dalka waxaan leeyahay Israa'iil dad ka socda dalka isku tagga Imaaraadka Carabta oo u jooga in ay dabcan soo indheeyaan dhulka ay Israa'iil ku fiday gaar ahaan daanta galbeed iyo magaalada barakaysan ee Quds. wararku waxay sheegayaan in isku dayo xoogan iyo waliba waxa la wada shaqeyn xoogan oo ka dhaxaysa dalalka isku tagga Imaaraadka Carabta iyo Yuhuuddu ay aad u xoogeysanayeen tan iyo intii uu xumaaday cilaaqaadkii dalkaasi Iran iyo waliba dalalka Carabta. wararku waxay sidoo kale sheegayaan in saraakiishan ku sugan isku tagga Imaaraadka ka socday isku tagga Imaaraadka Carabtu ay u diyaar garoobayaan baa layidhi in ay sidoo kale ay ka qayb qaataan baa layidhi duqeymo kale oo ciidamada Israa'iil ay ka geystaan Mareykanka Gaza ee reer Falastiin. halkaad nagala socotaan waa warbixinihii iyo wararkii caalamiga ah daawadayaasha qiimaha leh qaybta dambe iyo wararkii wacalaha noogaaneen.